Kusoo dhawaada warka Gaca Media Tube warkii oo kooban. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 12 milyan oo Ukrainiyiin ah ku barakaceen weerarada Ruushka ka wada Ukraine. Afhayeenka baarlamaanka Sri Lanka Mr. Mahinda Abiywardena ayaa sheegay in madaxweynaha Sri Lanka Mr. Gotabaya Rajapaksa uu iscasili doono 13 Juulaay ee sanadkan. Madaxweynaha Rwanda Mr. Paul Kagame ayaa sheegay in uu tartami doono markii afraad doorashada dalkaasi ka dhacayso. Waxaa xusid mudan in Paul Kagame uu 5 sano ka hor dib u habeyn ku sameeyay dastuurka dalkiisa. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si diiran oo heer sare ah loogu soo dhaweeyay caasimadda Eritrea ee Asmara. Dowladda Zimbabwe ayaa sheegtay in ay daabacayso lacag suno dahab ah oo wax lagu kala gato. Bangiga Qaranka Zimbabwe ayaa sheegay lacagta warqadda ee dalkaas maadaama qiimaheedii leecay si kor loogu soo qaado qiimaheeda in uu daabacayo lacag suno dahab ah taasoo dhammaan gudaha Zimbabwe laga isticmaali doono. Haddii ay u hirgasho waa qorshe cajiib ah waayo Zimbabwe waxay ka mid tahay wadamada Afrika ee dhaqaalahoodu sanado badan hoos u dhac ku jiray sicir bararkuna uu joogto ka ahaa muddo badan. Ra'iisul Wasaaraha Sri Lanka oo oggolaaday in iscasilo. Shirkadda Twitter oo ku hanjabtay in Elon Musk ay maxkamad la tiigsanayso sababtuna ku sheegtay maadaama wixii ay ku heshiiyeen uu fulin waayay. Waxaa xusid mudan kal hore in Elon Musk 44 bilyan uu ku iibsaday shirkadda Twitter. Waa mahadsantihiin dhageysigiina. Intaa waxaa inagala warkii aan ku kulmi doono.